abaartu waxa ay sababtay dhibaato aad u weyn waxaan sameynay isbuucii dhaweetay boqosho ballaaran oo aan ku tagnay dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Hobyo intooda badan waxaan la soo kulannay oo aan indhaheena ku soo aragnay xaalad runtii aad iyo aad u adag oo ay ka mid tahay xoolihii oo u joodno ayagoo dhimanaya guri walba waxa ka aqodan godba ka aqodan xoolaha lagu guro oo xooluhu habeenkii marka xerada subaxii laga soo daayo qayb kamid ah ayaa looga soo tagaa xerada looga soo tagaa runtii xera aan 5-6 looga tagin dhimashada ma jirto subaxii waan culayska runtii guud oo jiro weeye dadku waxa ay la dala dhacayeen 3 sano abaartii jirtay oo runtii roobkii la rabay aysan diin ilaahay baan uga toogaynaa oo baryaynaa in ilaahay siiyo roob si guudna waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maanta caawin ayaa runtii la iska rabaa gurmadka abaaruhu meel walba ka jiray si xoogan baa ummadda Soomaaliyeed isku taageeri jirtay maanta waxa loo baahan yahay in la taageero walaalaheen waxaadkan soo aragnay waxa kamid ah dadku inuu u baahan yahay biyo si xoolaha aan ceelka aadi karin loogu sameeyo biyo lagu shubo guriga lagu shubo waxa u baahannahay sidoo kale raashinkii oo dadka runtii la turkoodu aad u cabanayaan oo si aad iyo aad u badan inay jirto waxa ka imaan doonta nafaqa darro ayaa ka imaan doonta oo dadka ah ayaa imaan doonta waayo dadku waxay ku tirsanayeen hilibkii iyo caanihii ku tirsanayeen ayadana meesha ka baxeen meelaha qaarkood waxa laga fuliyay gurmad aan sidaas u sii buurneyn oo ku aadamaya dhaamis ha yeeshee faan noola fara kuma qodna ee gobolkan waxay xaaladdu tahay mid daran oo wali aysan arag indhaha caalamka Cusmaan Axmed Cabdulle gudoomiyaha degmada xeebeedka Hobyo ayaa ugu baaqay samafalayaasha dawladda federaaliga ah dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo jaaliyadaha muxsiniinta ah inay ka soo gaaraan dadka abaaruhu ay saameeyeen runtii xaaladda jirta ay xaalad sahlan ma ahan waxa aan soo aragnay waxa kamid ah ninba wuxuu leeyahay 200 neef ku dhawaad qayb kamid ah ayaa soo fikirin qayb kamid ah ayaa biyo aadi karin marka waxa u baahan guriga in biyo lagu keeno booyada biyaha 200 ayay meelaha qaar oo dollar ay gaartaa meelaha qaar 50 meelaha qaarna waa 120 weey biyo dhaamin ayaan sameeynay hordhac ah oo annaga runtii maamul ahaan ah nin walba gaarigiisa inuu biyo ku qaado oo xaafadda runtii u geeyo u dhow u geeyo ayaan runtii aan bilownay meel fiican bay runtii noo maraysa arintaas halana wax u baahan tahay arintan waa arin weyn oo u baahan garab u baahan weey dawladda federaalka ayadana runtii sidoo kale waxa leenahay maanta caawinta hay'adda Sodma in runtii arintaas iyadoo tarkeedu ay xoog saarto agaasimaha hay'adda runtii waa la wadaagnay warbixinta inta badan waa la wadaagnay wuuna ayaa xogta waxa leenahay dadaalka runtii in la sii laba jibaariyo u baahan tahay wadankeena Soomaaliya dhanba ku habsato abaartu ay ku habsatay dawladda Galmudug runtii madaxweynaha ugu horeeyo iyo wasiirada dhamaantoodna arintan way ka hadleen oo xoog saareen in maanta ay jirto xaalad degdeg ah ay jirto wasiirada qaar oo la soo diray gobolada qaar oo la soo diray runtii aad baa uga mahadcelinayna inay soo gaaraan waa rajeynayna oo runtii ayaga firkooda ay indhahooda ku arkaan xaaladda runtii meeshan ka taagan Dalbile Media, home of the untold stories.